Bismillaahi Raxmaani Raxiim galab wanaagsan halkani waa xog baahiyaha ciyaaraha barnaamijkeena galabta waxaan xoog ku saari doonaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe iyo like saar asxaabtaadan la wadaag wixii fikri ra'yi ahna inoogu soo gudbi qaybta ugu hooseysa ee commentiga aynu ku bilaabnay kooxda Barcelona ayaa ku jirta wali raadinta daafac dhexe oo caalami ah kooxda Blaugrana ayaa markan isha ku haysa laacibka kooxda Sevilla ee Jules Koundé xidigan ayaa ah mid haqabtiri kara baahida kooxda Barcelona laakiin Sevilla ayaa dul dhigtay xidigan qiimo sare oo gaaraya ilaa 90 milyan oo euro waana sababta Barcelona ay uga labalabeenayso in ay u dhaqaaqdo xidiga reer Faransa warar maanta soo baxaya ayaa tilmaamaya in Barcelona ay meel dhigtay qorshe ay aaminsan tahay in kooxda Sevilla ay aqbali karto haddii loo bandhigo dalabkan ayaa ah mid aan wax lacag ah la isiisan doonin beddelkeeda naadiga ka dhisan Catalonia ayaa dhankeeda Sevilla u diri doonta 3 laacib kuwa oo lagu sheegay in ay kalihiin Langley oo daafac uga ciyaara oo horena uga soo wareegtay isla Sevilla laacibka daafac bidix ee Junior Firpo iyo qadka dhexe Brazil ee Filipe Coutinho haddii heshiiskan suurtagal Coutinho ayaa soo nooleen kara waayihiisa ciyaareed laakiin waxa uu u baahnaan doonaa inuu horumariyo qaybta daafaca ciyaartiisa haddii uu rabo inuu ku dhex shaqeeyo shaxda tababaraha Sevilla ee Julian Lopetegui Barcelona ayaa heli doonta mid kamid ah daafacyada ugu fiican Yurub haatan waxaana intaas dheer in xidigan uu leeyahay wax walba oo ay Barcelona uga baahan tahay daafacyadeeda waana mid ku wanaagsan kubadda heesashada hore ayay Barcelona u xaqiijisay inay heshiis la gaartay daafac da'da yar ee Garcia oo ay kala soo wareegtay Manchester City si bilaash ah hase ahaatee Koundé ayaa ah mid ka tayo wanaagsan laacibkaasi xidigan ayaa kooxdiisa Sevilla ka caawiyay xilli ciyaareedkan in ay ku dhameysato kaalinta afraad ee La Liga waxaana xulkiisa Faransa ku abaalmariyay mid kamid ah boosaska ciyaartooyda Euro ku metali doona haddii qorshaha Barcelona hirgalo waxa ay taas la mid noqon doontaa in ay hal dhagax laba shimbir ku dileen iyaga oo kooxda ka diri doona xidiga aysan u baahnayn taa beddelkeeda heli doona Koundé laakiin ma sahlanaan doonto in heshiiskaasi si dhaqso ah ku dhaco dhanka kalena kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa mar kale la xiriiriyay daafaca reer Faransa iyo kooxda Real Madrid ee Rafael Varane waxaana maanta wararkii ugu dambeeyay tilmaamayaan in kooxda sheedamada casaas ay diyaar u yihiin in ay laba jibaaraan mushaaraadka laacibkan uu haatan ka helo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid xidig reer Faransa ayaa qandaraaskiisa garoonka Bernabeu waxaa ka harsan oo kaliya hal sano waxa uuna ka diidan yahay inuu kordhiyo heshiiskiisa laacibka Faransa ayaa go'aansaday in waqtigiisa Spain uu soo gabagaboobay warbaahinta Spain ayaa cadeysay in daafacani uu sanadkii gun ahaan u qaato kaliya 6 milyan oo euro waxaana kooxda reer England ay u soo bandhigtay wiilkani gunna gaaraysa ilaa 12 milyan oo euro sanadkii marka si dhab ah loo eego lacagta Real Madrid ay siiso Varane ma aha mid u qalanta tayadiisa xidiga reer Faransa ayaa Madrid kula guuleystay koob kasta oo ay dheeshay waxaana taasi u dheer inuu ka mid ahaa xidigii xulkiisa Faransa ka caawiyay ku guuleysashada koobka adduunka 2019 ayay ahayd markii Manchester United ay rikoorkooda suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ay u jabisay kabtankeeda haatan ee Harry Maguire waxaana mushaar ahaan u siisaa lacagdan mid haatan ay u soo bandhigayso Varane waxaana jirta xaqiiq ah in Maguire uusan weligiis wax koob ah ku guuleysan Real ayaa ku doonaysa xidiga reer Faransa qiimo dhan 70 milyan oo euro Manchester United ayaa u baahan inay adkayso daafaceeda waxaana kulamadii ugu dambeeyay laga dareemay kooxda maqnashaha kabtankooda oo dhaawac uu soo gaaray dhamadkii xilli ciyaareedkan dhanka kalena Steven Gerrard ayaa ka mid noqday magacyada la xiriirinaya shaqada tababarnimo ee naadiga Wolves ee horyaalka Premier League Gerrard ayaa ku biirayay liis uu ku jiro tababarihii hore ee Chelsea Frank Lampard waxaana middan ay cadeen u tahay in naadiga Wolves uu lumisay macalinkeedii reer Portugal Nuno Espirito Santo ay qiimeynayso macallimiin badani Wolves ayaa lagu soo waramayay in ay ku dhaweyd in ay tababarihii hore ee kooxda Benfica Bruno Lage ay heshiis la gaarto balse waxaa soo baxay dhibaato xagga warqadda shaqada ah oo ay heli weysay macalinka reer Portuguese iyo kooxda Wolves ayaa isbuuca dambe la filayaa in ay marka la dalbadaan warqadda shaqada maamulka kooxda Wolverhampton ayaa ku baraarugsan horumarka kabtankii hore ee Liverpool ee Gerrard uu la gaaray kooxda reer Scotland ee Rangers sanadkan isagoo uu ku guuleystay horyaalka wadankaas isagoo aan wax guul darro ah aan la kulmin Nuno oo ka hayaama Wolves dhamaadkii xilli ciyaareedka ayaa ka saaciday Wolves inay u soo baxdo Premier League 2018 waxa uu gaarsiiyay kaalinta 7
guulaystay kala sareynta horyaalka 2 sano oo xiriir ah, balse xilli ciyaareedkan ayay kooxda ku dhameysatay kaalinta 12-aad ee horyaalka iyagoo waqti hore dhaawac halis ah ku lumiyay weeraryahankooda Jimenez. waxaana tababarana haatan la xiriirinayaa shaqada kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. dhanka Talyaanigan, tababaraha cusub ee kooxda Juventus Massimiliano Allegri ayaa maamulka naadiga ka aqbalay in ay soo xirigeliyaan laacibka khadka dhexe ee naadiga AC Milan Hakan Çalhanoğlu oo xilli ciyaareedkani. laacibka Turkiga ah ayaa noqonaya ciyaaryahan xor ah bil kadib waxa uu la hadli karaa kooxdii uu doono. kooxda Liverpool ayaa la xiriirinayay saxiixiisa isbuucan, laakiin Calcio Mercato ayaa tilmaamaysa in kooxda marwada duqda ahi ay hogaaminayso wada hadallada laacibkan iyadoo tababaraheeda cusubna uu qiimeeyay xiddigani. Çalhanoğlu ayaa qayb ka ahaa 21 gool oo naadiga reer Saneeri ay dhalisay horyaalka Serie A isagoo dhaliyay 12 kalena caawiyay. xiddigan ayaa noqon doona awood kale oo ku soo biirtay Juventus xilli ciyaareedka dambe. khadka dhexe ee reer Turki ayaa mar kale Turin kula midoobi kara goolhayaha kooxdiisa AC Milan ee Gigio Donnarumma xagaagan. goolhayaha reer Talyaani ayaa la xaqiijiyay goor hore oo isbuucan ah in si bilaash ah uga hayaami doono geegada San Siro, waxaana wakiilkiisa Mino Raiola uu durbawada hadallo la furay kooxaha Barcelona iyo Juventus si ay u helaan saxiix xiddiga reer Talyaani. Juventus ayaa si bilaash ah ku heli karta 2 laacib oo waxweyn ka tari doona kooxdeeda xilli ciyaareedka dambe haddii ay ku guulaysato saxiixa labada ciyaaryahan. ugu dambeyntiina, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhowdahay in directorkii hore ee kooxda reer France ee Lille Luis Campos ay u magacdo directorkeeda cusub. Madrid ayaa rabta in ninkani oo horey uga soo shaqeeyay kooxda xagga indhaynta ciyaartooyda ay mar kale u soo celiso caasimadda Spain. kadib xilli ciyaareed fashil ku dhamaaday, kooxda cadcad ayaa wada qorshe ay wax kaga bedelayso maamulkeeda sare, waana markii ugu horeysay oo ay sidan sameeyaan muddo laga joogo 11 sano. naadiga Madrid ayaa la sheegayaa in ay waday isbedel xoogan xilli ciyaareedkan, balse ay soo bandhigin iyagoo uga dan lahaa in aan wax saameyn ah lagu yeelanin xilli ciyaareedka socday. ilo wareedyo la hadlay gool ayaa tilmaamaya in wada hadallada labada dhinac ay socdeen ugu yaraan muddo 2 bil ah, ayna isku raaceen in aan banaanka la wada keenin, iyagoo ixtiraam u muujinaya tababaraha ka haya naadiga ee Zinedine Zidane. waxaana hadda Madrid ay dardar gelisay wada hadalka ay la leeyihiin Campos. ninka reer Portugal ayaa xiriir wacan la leh madaxweynaha Los Blancos Florentino Perez iyo agaasimaha guud ee naadiga Jose Angel Sanchez. 56 jirkan ayaa jagada directornimo horey uga soo qabtay naadiga Lille, waxaana la arki karaa saameyntiisa iyadoo sanadkan naadiga Lille ay ku guuleysatay horyaalka wadanka Faransiiska ee Ligue 1. waxaana horey shaqada noocan oo kale uga qabtay naadiga Monaco ee isla horyaalka Faransa, waxa uuna qayb weyn ku lahaa sare u kaca weeraryahanka reer Faransa iyo kooxda PSG Kylian Mbappe. waana mid ka mid ah sababta Real Madrid ay haatan u dadejinayso wada hadalladiisa khabiirkan, iyagoo raba in ay bilaabaan ugaarsiga Mbappe. waxa ayna doonayaan in ay ka faa'iideystaan inta uu saxiixin heshiis cusub, waxaana xiddiga reer Faransa kaliya ka hartay heshiiska uu kula jooga PSG muddo 1 sano oo kaliya. barnaamijkeena galabtii intaas ayuu ku egyahay. fadlan subscribe, like, mahadsanidin.